kulanti wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal waxaa khadkaasi toosa ugu jira suldaan sayid cumar cismaan maxamed suldaan goodir oo ah suldaanka maxamed sheekh isxaaq beelweynta cimraan oo aanu khadka taleefonka ku wareysan doono. suldaan ugu horeyntii waxaad ka warbixisaa sida aad u aragto bal dagaalada ka jira duleedka lascaanood dagaaladaas oo u dhexeeya ciidamada muuse biixi ee somalilan uu soo diray iyo xogaga SSC. bal ka aragtidaada ka suldaan ahaaneed see u aragta arrintaas? بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياسين فايتو هذا رورتا وما هتسنتها خير الله كسيو أرنكا إساقا lascaanood dagaalka ka socda ee waqtiga badan socday waxa la oran karaa waa dagaal fool xun, waa dagaal aan loo baahnayn, waa dagaal ka tegi doona raad cawaaqib xumo dheer reeba oo aan laga soo kaban doonin. sababtoo ay tahay dadku horta isdagaalaya waa dad ehela oo inan iyo abtigooda ood wadaag leh markay sidaa tahay waana wada qaraabo. imika markan ku laabto imika garaad maxamed garaad abshir garaadka marka anagu habar wadaag baano, haddana garaad cabdirashiid waraaba dheer iyo aabahayna laba walaalaa kala dhalay. garaad jaamac garaad cali iyo aabahay walaalkiina waa ilmaabtay, karaash iyo aabahay walaalkiina waa ilmaabtay. qoysaska kale iyo ehelka kale ee ayaa kasii badan waxaaba ee aan la wadaago. reer walba oo reer Sheekh Isxaaq iyo lubahantana waa sidaa. waagii hore waxaan maqli jiray marka la ducaynay in la yiraahdo ilaahu weli daarood iyo weli direed ilaahu dambigiisa dhaaf oo ka sawaabi. macnaha waa dad isku noola oo isku nafa. maanta dagaalka halkaa ka socda ee ku dhacaya weliba ku dhacaya dhulbahanta ku dhacaya waa dagaal xaq darro. waxaan leenahay nabar xaq darro Allah idinka dhigo. garaadada ismiyada iyo boqorada inkaarta iyo habaarka ay soo gudbinayaan Allah inaga badbaadiyo, Ilaahay inaga badbaadiyo. waayo nin gurigii uu deganaa iyo baradii Ilaahay ku beeray iyo maatadii iyo caruurtii xabadi ku dhacayso dee wax walba waa la gudbooyin. inuu habaaramo waa istijaabo oo waa madluun, inuu dagaalamo inuu doodo wado waliba waa u furantahay. waayo waxa weeyaan dadku waa kala gobol maanta ninka caruurtiisii ee maatadiisii dibadda loo daadiyay dibadda u qaxday ee waliba ku darso oo foolxumada kale ee ka weyn dhacday waxay tahay dad ba u jawaabaya aan iska aqoon gaab oo haween iyo caruur markaas ay garaadku muxuu yiri gala dagaalka ama maxay nabad u qaadan waayeen. waa wax inagu cusub dad xabad ku dhacayso xabad lala dhacayo oo xabad lala dul taagay in la yahay nabad qaata. adduunyada lama arag, adduunyada waa wax cusub oo maanta inagu soo kordhay. dad xabad ay ku dhacayso xabad ku hoobanayso oo habeen iyo maalin ay xabad ku dhacayso oo dalal leeyahay nabad qaata. taasina waa gef labaad. qodobka labaad aan doonaya inaan u gudbaa wax weeye horta dhulbahanta geedi ma aha meel uma socdo. berigii hore Soomaalidu way isdaba guuri jirtay way isdaba degi jirtay oo reer buu daba degi jiray oo dadku geel iyaba u dhaqan jiray oo hawdkaas loo socday. hadda dadkii hawdka waa soo noqdeen. tusaale ahaan haddaan ku soo qaato habaryoos hadday awal hore garsare iyo dool iyo hawd degi jirtay hadda waxay rabaan inay ceel dheere iyo burco iyo u soo ceel degaan oo ay soo degaan. oo adiga arkay shaqaaqooyinka ka socda burco agteeda ilaa hawdka Hargeysa iyo ilaa iyo waxa weeyaan gobolada dhexe dadkii hawd jiray way soo socdaan. dhulbahantana hawd waa ka soo socdaa waqooyi u soo socda. waayo ceel biyale iyo dhulkan imika macdanta leh iyo dadkii waa magaaloobo geel iyo xoolo dhaqatadii waxaad moodaa inay soo yaraanayaan. marka waxa loo soo socdaa dhulkii biyaha lahaa macdantu taa ayay dadku aad moodaa inay ku soo wajahan yihiin. dhulbahanta horta imika geedi ma ahe waa soo guuraya waa soo degaya. dhulbahanta cusub oo hor la soo degi doona oo boqolaal sano ay wadankan ka guureen oo Itoobiya iyo kililka shanaad ay degeen oo Itoobiya xoogiisa waxay ku leeyihiin intaas oo xildhibaan bay kililka ku leeyihiin. waa soo guuraya waa soo degay waa soo socda. habaryoorista waa sidaa.
مثلا هدان سوقات حتى nimanka reer daahir lay ama reer Yusuf ku dhiig baxay hawd sare ku dhimanay dhirta hoosteeda geel dhexdii lagu diray hadda way soo socdaan oo waxay soo degi doonaan galol madooba iyo qoryaali bay soo degayaan marka waxa weeyaan cimiladu way isbedeshay hadda dagaalku Ethiopia dad shacab oo qori hubsita ma jiro dagaalku hadda wuxuu ka bilaabmi doonaa oo duufaanada badan ay ka kici doonaan dhulkan Soomaalidu degto ilaa iyo gobolka Hawaash ama Eritrea xuduud ilaa iyo ilaa iyo koonfur waayo Soomaalida adduunka meel hubbay soo wada gadatay dagaaladu intaasay ka qarxi doonaan Soomaalidu meelay degto hadda dagaal xoog la ku soo wajahan reerku doonaha aado gurigu doonaha aado gobolku doonaha aado markay sidaa tahay haddaan la ascaanood ku qabto ku noqdo dagaalka la ascaanood laba mahadin doono dhulbahanta in laga adkaadana lama sugayo suurtagal ma aqliga ma geli karto waxba yaan dadku meesha ku dhiig bixin ciidamada hal laga qaado og hal la geeyo isinyo dhig fureeshale maaha kuwa ay xukuumaddu ku shaqaysanayso iyadoo ay wax ku shubato cid waliba og tahay ismiyadii hore xaaraana ma cuni jirin waxa weeyaa beena ma sheegi jirin dawladana kuma shaqaysan jirin ilaahay dartii iyo qarannimada iyo Soomaalinimadu halkii ku jirtay bay u shaqayn jireen ismiyo fureesha iyo dad fureesha iyo dad waxa weeyaan wax laga dhageysan karo ayaa wada hadalka furi kara markaa laakiin intay sidaa tahay waxa weeye waa kugu dhimay oo ka dhimay nabad guul halka laga ma keenayo balla waxa iman doonta isaaq gudihiisa inuu ku kala dhinto oo dagaal xun oo lagu riqnaa u dhaxmaro sababtoo ay tahay waxa weeyaan imika hawdka Hargeysa iyo burca hawdkeeda waa tan qoryaha hubba la isu haystaa waxa ismaandhaaf ka jira dadkii kililka jiray ee geelayda ahaa ee sii guuri jiray iyo dadkii daba guuri jiray oo imika isgaaray meel loo guurayo meel loo socdaana ma jiro qoladii buurta xagga dambe loo oran jiray buurtay saaraan jiray iyana cagaagii ma ogolo inay buurti ku noqdaan ma ogolo horta halka ismaandhaaf adag baa ka dhici doona waa inay qolo muquuniso oo ama qolo buurtii lagu celiyo ama qolo lagu hor joogo xadka dhereeran aanay ka soo gudbin ya in nabad lagu wada noolaado oo nabad lagu wada joogo labada horta waxba kama dhaxayso hadday dagaal noqotana waxa weeyaan rag maanta waxaystaan waxba haysan doonin waxa iman doonta dagaal fool xun oo lagu riiqmo dawlad xakameynaysa hubka ma jirto adduunyada oo dhan baa rugta ganacsiga adduunka hubka Soomaali oo dhan baa dhooban oo hub soo gadanayso soo wadata hub baa la isu soo wataa ilaa guri ciise hawaash ka soo bilow ilaa waraafta muddo ilaa iyo waxa weeyaan koonfur Soomaalidii degtay hub bay ku maqantay safar waxay ugu maqantay inuu hub soo gadato dagaalada fidma lama toosiyo waxaan oran lahaa oo mar labaad iyo mar koobaad ba aan yaasiin oo oran lahaa dagaalkaasi balaayo daaman la qabtay leedahay daba la qabta male waa ka dhimay oo kugu dhimay dagaalkaasi dagaal loo baahan yahay ma aha dagaalka Soomaaliland iyada joojin karta iyadana ridi karta dagaalka balla xabadii ugu horeysay iyaga hiday dadkii ugu horeeyay iyaga dilay marka arinku uu sidaa yahay waxa la rabaa hawsha ummaddu Soomaaliyeed waa dad wada dhashay waa dad ehela warnimayahow ninka maanta maatada iyo caruurtiisu dibadda ku nooshaado ee ninka maanta ay harka iyo TV-ga daawanaysa guriga ku jirto biri ka maalin bay gurigaaga iman caaqiladaad gasho ee maatada iyo caruurta laga galo waa mid biri gurigaaga iman doonta nin walba taadiyada geel adraawi baa yiri baa waxa kamid ah maasooyinkiisii ninkii gabadh margeynaa gacan dhaaf ku maalay gurac wax kaga doono gurigaaga ku taalo inaan gabadhiiniyo inantaaday ka go'anta gabadhaadi iyo inantaaday ka go'anta qodobka labaad Hargeysa waxa in badan soo noqnoqotay in maalin walba inaan laga oohiyo lagu xiro
hablaha lagagama oohiyo ma geeyaan xadhig ma geeyaan inan baa wax qortay iyo inan baa tii wax tidhi iyo inan baa cadaalad ka hadashay iyo wax loo xidho maaha ninka inan ka baqaya ee siyaasaddiisa oga baqaya dee markii hore aanuu luga badan ku taagnay waxaa la odhan jiray hees baa beri hore waxay odhan jirtay imkaasoo aan xasuustaa baxsan ay hargeysa bara lagu nagaaday waxaan ka baqayaa inay hargeysa noqoto bara laga baroortay ha laga daayo hablaha lagu xidhayo ee maalin walba miidiyaha taalla inan askari garaacayo ama la garaacayo ama la xidhayo jeelka jiifta gunnimada caynkaasa gunnimada isaaq hadalkaa waxaan u sheeginaya reer Sheekh Isaaq ama isaaqow waxaa la odhan jiray reeraha Soomaaliyeed dadka ugu gobaysan baa la odhan jiray ama aan isku tirin jiray laakiin maanta waxa caddaatay inuu isaaq gumoobay xaqiiqan haddaan arrintaa wax laga qabanna isaaq toos buu gumoobaya waa la arki doonaa hadalka aan leehay iskama lihi duufaan siyaasadeed baa soo socda waxa weeyaan ninka maanta Ethiopia iyo Eritrea iyo Kenya gacan saar la leh ayaa geyiga ka talin doona ama power ku yeelan doona waa ogtiin halkan inuu ka joogno hawsha halkaa ka socotay Allah saanad ka socota iyo shaqaaqooyinka la hurinayo iyo dadka qoryaal iskugu dhiibayo hawsha laga waantoobo hablaha laga oohinayana laga waantoobo wabillahi tawfiiq salaamu alaykum suldaan marka haday sidaas tahay xaaladdu oo aad waxgaradkiina iyo dhaqankiinu aad sida u ogtihiin ma jiraan xiriir aad la samayseen xukuumadda Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin oo aad arrintan ugu caqli celiseen اللهم صل على محمد adeerow horta waxa weeyaan qof kasto aqli saliim leh oo bila aadanimada garanaya aw Soomaalidu waxay tahay inaan wax jooga garan waxa soo socdana ma garto ama og waxa ka dhalan doona dhibaatada ka iman doonta iyo foolxumada ku dambayn doonto waa ka hadlaa laakiin qorsha meeshan yaalo oo waxa weeyaan iyaga laftooda isu fekeraya qola waxay doonaysaa inay fashilmaan oo nimankani ay digsi qoorta la galaan oo waxa weeyaan ay fashilmaan bay qola doonaysaa oo waxay leedahay ku socda meeshan waxa weeyaan waxba la iskaga talaabsanaya waxba la isu sheegi maayo waxba la isu tilmaami maayo la iskama qabanayo hadhowna jeegada loo dhacay waxa la leeyahay hebel iyo hebel baa yaa falka ku jiray qolayadu waxay doonaysaa inay waxa weeyaan ay hawsha nimankaasi sida u fashilmi lahaayeen ama kiis loogu samayn lahaa ayay horta qola ka fekeraysaa qolana waxa laga dhaadhiciyay waa la idinku soo duulayaa maanta idinku soo duulayo oo dhulku idinka qabsanayaado ilaa burcu imanayaado ilaa waxa weeyaan neeshii la odhan jiray allahumma salli calaa maxamed gaatama iyo waxa weeyaan ayay ku soo socdaan oo aanu idinka hor taagana oo dadkaas waa dadkaan aqoonta dheer lahayn ee jaalmagaratada ah laakiin dadka waxgaradka ee hool caqliga ah waa laba qodob dad og oo arkaya halkay ku socoto baashu ama ay ku dambayn doonto oo waxa weeyaan nimankan la raba sidii ay u fashilmi lahaayeen ama kiis u geli lahaayeen oo iyagu waxa weeyaan ay u raadinayeen inay nimankaasi horta waxa la yidhi riyo jeerigooda shalow ku doontaan meelay qoorta la galaan iyo cid ay isku marmaan oo halkaa kiis ooga yimaada qaar la raadinaya iyo qaar waxa weeyaan allahumma salli calaa maxamed iyaga kula socda oo waxa weeyaan waxaan og laakiin aan dan kala ahayn aakhirana u turayn bila aadanimana u turayn Soomaalilandna u turayn gobolladana u turayn dadnimadana u turayn oo waxa weeyaan iska gaangiso manaxaana dadku waa saddexdaa qaybood horta inaan waxba u bilownayn ee wax dhegta loogu riday la cararaya oo le waxa weeyaa waa la idin qabsanayaa oo dhibaato idin qabsanayo oo cagta idin marinayo oo burca idin ka qaadayo oo caynaba idin ka dhulka idin qabsanayo iyo qaar doonaya inay nimankani fashilmaan oo la raba oo waxa weeyaa sidii ay nimankan u fashilmi lahaayeen kiis u geli lahaayeen mid caalamka iyo mid ilaahay iyo mid aadamahaba doonayo oo waxa weeyaan
iyaguna gambarka ugu fadhiya iyo qaar raalli kaga ah oo dee nimankaa la adeegsanaya ee la leeyahay orda oo halkaa tago oo halkaa tago oo garaadada la soo hadlo oo halkaa tago oo iyagu waxa weeyaan dee adeegayaala waa saddexdaa qaybood markaa hawshaa guul lagama keenayo guul lagama keenayo guul lagama keenayo guul darro waxaan ahayn lagama dhaxlayo waad ogaan doontaa ta ka dhacda waa laga sheekayn doonaa dib baa laysu weydiin doonaa hawshaa haddaan faraha laga qaadin oo faraha laga laabin midda kaleeto waxa weeyaan dadkan inaan waxba lagu falayn oo la nacay ayaa halkaa nacayb fog baa iyo kaa tusisay betel waxaa la qabtay aydiin may 4 milyan baa ku baxay dadkii ay lahaayeen madax baanu nahayna dibadday daadan yihiin oo waa qaxoonti oo balbalooyinka iyo bay jiifaan iyo guryo reeraa iyo jiifaan marka hadday dadka ka naxayo rajo ka qabaan dee waxaa ma sameeyeen horta dhulbahante weligii guul lagama keenin inta dadku way guuraanoo way isdaba guuraanoo soomaalidu weligeed waa guuri jirtay ogaadeenba isagaa jigjigiyo hargeysiya degi jiray iyagaa degi jiray waa la guuri dadku waa isdaba guuri jiray hadday qolana leedahay wardee guura awalba waa guuri jirteen iyaguna imika waxa weeyaan haddaba lama guuraya dadkii dib bay u soo noqdeen waad arkaysaa marka dagaalkaasi dhulbahantee laascaanood iyo yool kama guurayo wax kasta ruushku hadduu yimaadana ma guuraya haddaabay soo socdaan guushana waxaa iska leh goor alla siiyaba dee ninka madluulka ee gurigiisa jooga waa ogeydeen soomaaliya waa duusho etoobiya weerartay iyadoo ilkaa kabaa kustay ka soo bilaabteen arrintu sidaa waa ka beddelan tahay yaan laysku madadaalin huwan iyo waxaa laga baxo war dad baa ilaahay halkan ku beeray xabad dadkaasi ma geyaan in xabad loo quuro oo dadkaa waxa weeyaan mageynada ah ee garaadada leh ee ismiyada leh iyo maatada leh ee waxgalka leh ee soomaali waxgalkooda oo aan weligood soomaali shisheeya u soo raacay maanta in xabad loo quuro qodhay xiraday ma geyaan arrintaa waxaan mar labaad ku baaqaya dagaalkaas si dhaqsi haddii loo joojin waayo ili walowba gurigaaga kuugu iman xagga ilaahay baad ka heli duufaan baa ku soo wajahan yaa la gaadhsiin sheekadu meelaanay gaadhin irir ma joogto kabla waxa weeye absamo ma joogto yaan loo qaadan dhulbahanta xitaa laftiisu inuu dagaal ku wada jiro etoobiya ay jiraan waa soo socdaan etoobiya iska daa harti iska daa kablalax daarood iska halkan iska dhig waa dhulbahanta aan weli iman dhulbahanta aan weli iman oo waxa weeyaan aan weli kicin oo hawshaasi gaadhin waxa weeyaan dhulbahantihii etoobiya oo adduunka ku maqnaa oo dhan ayaa weli waxa weeyaan hadda dadku dib u socdaa garxajis nimankii garxajisee garsare degi jiray hadda kulli waxay doonayaan inay gadaal u soo noqdaan dagaaladuna waxay ka qarxi doonaan gobollada hubka ugu badan baa lagu soo wadaa duufaano siyaasadeed baa ka kici doonaa weliba haddii aan maanta la daba qaban waxa weeyaan koonfurna iyadaa isku mashquulsan oo waxa weeyaan ma kala dhammaanayaan oo kuwan xawaadlihii iyo burursadii iyo gaar u baxay waxa weeyaan halkan iyadaana dee iyagaa garhwadeen ka ahoo madax ka ah waa kugu xeeran yihiin waxa weeyaan iminka waa tan ciidamadan la kala diray nayi booliskii maxaa loo kala diray in canfarina ay waxa weeyaan area ilaa city iyo ilaa halkan tareenka xadkan isku xidha ay timaado oromaduna waxa weeyaan ay ku absato lughaya iyo waxa weeyaan ilaa zaylac marka waxa weeyaan arrintaa iyadaa haddaan laga noqon oo si dhaqso ah looga noqon oo degdeg looga noqon xaqiiqan waxa ka dhacda waa laga sheekayn doona dib baa laysu weydiin doona waa tahay suldaan maxaad ugu dambeyntii ugu baaqaysaa dadka ku dhegaysanaya reer waqooyi ama ha ahaadeen s s c guud ahaanba iyo somaliland horta baaqaygu wuxuu yahay waa nabad ha la qaato qodobka labaad ee aan doonayo inaan raaciya waxa weeyaan waxaa la yidhi war waa la doogina yaan la dacroon arrinkaa isaga ah
yaan nin siyaasi oo dan leh idin galaafan arrintuna waxa weeyaan maanta meel dhow bay joogtaa meel dhow ma joogto dee dad baa barakacay dadna waa dhintay laakiin mid ka xun baa iman doonta biri ka maalin ninkii hadimo taliyo adigaa u halisa ninka dulmiga iyo waxa weeyaan taageeraya u ololeynaya adduunka iyo aakhirada midna kuma badbaadayo xagga ilaahayna waxa u yaalla ciqaab iyo inuu ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala ka argoosto xagga aadamahana weji gabax iyo foolxuma u taalla marka waxaan odhan lahaa nabad ha lagu baaqo garaadadu iyo isimyadu waa mageyno yaan dadkan marya calaasta ah ee bal garaad iyo islaani xaggee iska galaan waxaan maqlaa islaan garaad u jawaabayso le garaadka muxuu nabad u qaadan waaye bal garaad iyo islaan xaggee iska soo galeen marka arrintu markay sidaa tahay waxaan leeyahay dee SC iyaga meelaad kala hadashaaba ma joogo nin xabad lala dul taagayo xabadi ku dhacayso dee waxaad kula hadashaa ma jiro ninka laakiin dee dagaalka furihiisa haya ayaa dee hadalku ku socdaayoo laleeyahay war adeerow ha laydiin duceeyo war dadkani meesha waa ku dhammaanayaan war cidima hadhayso war waxba uma yaalaan war ninka halkaa ku dhintaa waa waxa weeya waa cawtal dariiq war xagga ilaahay waxba kuma le war xagga aadamahana weji kuma le war waxa weeyaan yaan la soo kiraysan war yaanu noqon calooshiisa u shaqayste war yaanu noqon la adeegsade war ilaahay ha ka boqo war aakhiradiisa ha u turo war dadku waa ehel war waa kaa dhimay iyo kugu dhimay war dagaalka maanta halkaa ka socdaa war dagaalkaasi waa dagaal gunnimo ninka wadaana waa gun ninka ka dagaalamayana waa gun ninka garab ku siiyana waa gun war ilaahow hana gumayn baanu leenahay war gunnimo ha qaadanina war gunnimo ha yeelina war gunnimo ilaahay baa amar lehe haw baaqina war gunnimo ha u yeedhanina war inta nin gurigiisii iyo maatadiisii xabada lala dhaco la yidhahdo haddana nabad qaado war waa wax inagu cusub laleeyahy maxaad nabad u qaadan weyda war haddii nabad la rabo dee ciidamada laga saaro ciidamadu waa og yihiin halkaa ha la geeyo dad caqli fureesha leh oo ummadda Soomaaliya dhexdhexaadin kara ama dadkaa dhexdhexaadin kara ha la dhex geeyo ha loo diro dadaan la adeegsanayn oo wax loo yeedhinayn ha loo diro dadkaasaa nabad ka keeni kara wixii mag iyo dulmi iyo halkaa ka dhacayna dee cidda loo raacayo waa la garanaya aniga arrinkaygu waa sidaas. kaasina wuxuu ahaa suldaan sayid cumar cismaan suldaan goodir oo aanu khadka taleefanka kula xidhiidhnay. aad baad u mahadsantahay suldaan.